السلام عليكم سوري ولا له قالي يوتيوب channel ka nagal socota qoyska qarniga oo la shinshamis markana isku soo noqdo wanaagsan oo laali hor nool joogay walaalaha gadaal nooga soo bira dhamaantiin waa maadsantihiin sakala qeyraad leena sida quruxda badan nooga xiran tihiin lix quraan nooga dhiman kontanki kun noo share garay insha Allah sano garab taagantiin waa maadsantihiin maanta muuqaalka muuqaal xamaasadiisa wato waaya budkeyga agteeda ii taal baangada xataa maanta ay diyaarsan tahay soo dhawaada xala muuqaal soo gelinay muuqaalkaas oo ka hadlayay baabajey ma arkin nin ku soo xadgudbay oo lugta laga jaray adiga waa soo fiirsateen dhamaantiin dadka commentayaasha isoo qoran way og yihiin muuqaalkaas iyo dhowr mar aan reaction wax markaa muuqaalo ka soo bixiyo dad badan oo waxa arkaa dad badan ma dhihi kare dad qaar oo waxa arkaa ma arkin oo isoo ataago oo xurriyad iga qaadayo waxaan rabay aan ka soo hadli karinba taas waa la iskala soo tagay gabadha comment waxay isoo qortay la yaabkiisa leh oo mucjisay ugu noqdo aan la yaabay mid kale commentigaasna wax ugu cusub ma ahan magaalada aan ku noolahay ba saas oo kaleeto dhaqamo noocaas oo kala waa ka arkay su'aalahaas oo kaleetana waa liga weydiiyay gabadhan su'aasha ay soo weydiisay halkaas ay idin soo saari doona waa arki doontiin gabdhaha faraha badan ee maasha Allah ee ugu xiran ee quruxda badan ee qalbiga wanaagsan ee commentiga ugu jawaabayna waa mahadsantihiin halkaas ay idin kala socdo dhamaantiin aad u mahadsantihiin gabadhan waxay noo soo qortaa idin akhrin doonaa gabar la yaab waa gabadhan markii aragtay muuqaalka aan soo galiyay meesan dhameysanin kaliya markay muuqaalkii ku soo dhufatay ama title-ka kor ee soo aragtayba ana horey ka soo ataagtay ma fahanteen marka gabadhaas muuqaalkeeda aan u akhrinaay qoraalkeeda aan u akhrin doona waxay tiri aduu kaaga ku qabo maanad arkeenay tiraahday horta sidoo ilmaha kaaga dhalay tiri xaar kasta maadaa ka dhaqa gabadhaas arwaa inaan jawaab yar siiyo sidoo ilmaha iiga dhalay hadaa rabtid inaa ogaatid meel dheer haba ka raadininbo hoteelan kuu qabana saaxiib imaaw cashirkaada lagu soo siinaa adoo qanacsan adaa iska bixi doontid taasi waa ta koowaad midda labaad haddii lagu qabana soo ninkaaga iskaga dhaqaa haddii wiil kula dhashayna siduu iskaga dhaqo ayuu iskaga dhaqaa soomaalidana waxaa moodaa ma arkino qofka markay arkaan inuu ma arkino qadar ilaahay ku dhacay in ay qofka ul uga dhigaan dhowr mar waxaan arkay markaan reaction aan waxyaabo aan TikTok ku soo arkay aan ka soo hadlo in ul iga dhigaan adaab duruuftaas ku noole maxaa ma arkino waxa faaraas ku soo gali maxaa uga hadlay ulaba iga dhigeenba routine reer tabareed yarka ay idin soo gelinay wax maba ka soo hadli karay naqaska liigu dhijinaa reaction ma soo bixi karin ninkaaga saana maxaa ka hadlay aduu ninkaagu saan yahay aba xaaladaas ku nool ul aad iga dhigaba marka naagaha noocaas ah waxa intaas badanaa ka hadlayana niman ma ku arkin naaga leen ku arkay inta badana waxa dadka ku mashquulo oo ma arkino dadka inay liidaan isku dayo niyada ka jabiyana waa kaliya naag wixii naagta ugu badan tahay qabtaa gabadhaas ama naagtaas eraygaas ii soo qortay horta gabdho fara badanaa commentiga ku yaacay oo ma arkino jawaabo siiyay aad u mahadsan yihiin gabdhaha wanaagsan ee ugu xiran kuwa noocaan oo kaleeta ahna yaa ima niyad jabinayaan danta aan lahaa un baa wadanaya channelkaygana aniga iskale anaa xor u ah cidna ma aflagaadeeyo waxu noogama hadlo reaction dadka dhanaa ka bixiyo muuqaal ama wax markaas ma arkino laga hadlayo dadka dhanaa ka soo hadlo maxaa ani gooniya oo ma arkino ay aragtaan marka wax ka soo hadlo sababta aniga aad in iiga dhigtaan maxay tahay nin saas ah ku qabo ama ma arkino ninkaaga ma arkino gacmuhu ka go'an yahay ama ninkaaga lixadkiisa ma dhameystirno ama noloshaas ku nooshahay maxaa ma arkino iiga dhigaa yani ul igu aamisiyo maxaa sababta iiga dhiga maxay tahay waa doqonimada dumarka ku jirto dumarka dhanna ma dhahayo waa dumarka qaar janalka ana iskale adinkana waa ila leedihiin inta wanaagsan waa ila leedahay laakiin inta xun ee isku dayaysa inay hoos ii celiso ilama lahan xor ana janalkaygu ah waxun markaa ka soo hadlo waa canaani kartiin walaashiina ahay laakiin anoo waxun ka hadlin sababta ma arkino mar walba aan qas iigu celinaysiin maxaa waay waxa raba ka soo hadla afar dadka darab reaction ah bixina hadara routine soo gelina maxaa waasan naagta noocaas u hadashay iyo naagaha la midka ahna waxaan dhihi lahaa hada u baahan tihiin inaad ogaataan yaa hotel adii qabana warku adii soo dhameeyay cashirkiina adinkoo qanacsan adinka ka soo noqonaysiin oo ogaanaysiin taas ma idin faahfaahinayo ma fahanteen haddii ay idinka tahay ma arkino iska hadala loo hadlaana waxaasoo kaleeto wax lagu hadlamaa wax qof weyn meel inta kusoo qoro oo meel la soo fadhiistana maahane dhaqan xumo idinka badatay isku xishooda adin dhihi lahaa midda kaleeto
erayadan oo kale tuma kugu cusub yihiin iguma cusbo magaalada ku nool hadda ka hor waxaa dhacday gabar dariskeyga ah oo ma arkin aan ceesho madax ahayn oo isku fiicneen aan niman waaweyn waxay u soo shaqo tageen ay gabadhi u soo mareen ilaa aniga iima imaan karaan isagina ma weydii karaan gabadhan saaxiibta oo dariskaaga ah waxaa soo weydiisaa Ismaaciil soo saxarada iskaga dhaqo niman waaweyn oo magaalada jooga ku nool waxaas ku soo shirtay marka gabar meel iga aragtay oo comment ii soo qortay waxba maaha niman waaweyn fikirkaas ku jira oo qof ma arkin oo Ilaahay qadar u keenay isku dayaaya inay waxaas oo kale qodqodaan waxaas oo kale raadiyaan gabadhi waxa ugu jawaabay si ayaga iskaga dhaqaan oo iskaga dhaqa marka intaas iga gaarsiiyaan ku dhax gabadhi meeshii markina warka ku dambeysay marka Soomaali dad noocaas ah ku jiro wararkaas oo badanna way igu soo noqnoqdeen waxa dhihi la aan kala xishoono qof walba xadka uu leeyahay uu soo dhaafi waxna waa wax qadar Ilaahay ah waxna waa wax kaftan ah marka waxyaabaha caadiga ah oo kaftanka ah waa iska caadi gabdhaha qaar waxay weydiyaan soo wax u qabsado intii ma arkin oo daris ila ah oo xataa ogeen markuu wax soo duubo oo wax qabanayo way arkaan dadka qaar saasay uga qanceen dadka qaar waxay u maleeyaanba inaan qubaydada kaftan ku hoos gelinayo walla marka arko Ismaaciil labisan oo magaalada maraayo waxa isdhaha wallahi bilaa naag fiican oo qaba naag baa u soo qubaysatay oo marka u soo qubayna ama ilmo yaraan ku dhawaan nin weyn oo noloshiisa hortay wata hadeertaana watay maxaan ka qaldan mooysaasa uma leeyeen xataa Soomaalidu waxay taqaanaa warka ee ayaga ku dhahayaan waxay ku dhahayaan saasa la dhahay marka waxaan filayaa in aan kala xishoon doono oo waxyaabaha qaar ee ma arkin oo qofka walaalka aad ku dulminaysaan aad ka fiirsataan dadka qaar waxay aaminsanaayeen inaan ma arkin anigu u qubaysaan idin soo sheegaba marba safar aado Nairobi aade markaas waxa la gacmo isbeer ma guriga u yaalo soo waxaan oo dhan qabsadaa asoo dharkiisa feereysan yahay taagan oo kaal iska arag soo baxaahay ma fahanteen marka waxyaabo fara badan oo aan inaan ka hadla rabinaa jiro laakiin commentiga gabadhan waxa u soo qaatay waxa jira dad ayada ku fikir ah oo saas oo kala daciif ah waxaan arkay shalay Fartuun Habi gabar cod dheer soo duubtay dadka qaar shaqo la'aanta ka badatay codkii anoo la yaaban aan li soo galaba adoo yaaban ma maqasheen adoo yaaban adoo harsala ma lagu soo hargal ma maqasheen anoo gabadhi waxaas ku sameeyay codkaas dheer ee mashquulka dheeraadka ku sameeyay oo saa aragta ula soo dhaqantay waa aragteen anoo tiila yaaban aabatan xal digli isoo siiyay war reaction ma soo bixi kari maxaan ku raahday gabar walaalo ama channelka ka xirma ama cilad u imaata kama soo hadli kari حرب ميهبة حرية وحاول وين اللي قاعد اللي يجوا جوا نكاجا سنة هذا نورشان كنول أنا كحرة هاي جنال كان أنا إسكله وحي أن كسو قد بينا أنا وح أن بالآدم وقع بصناعي معنا وح إلهي وقع بصناعي وح ماشان سوق لي وأوجهي وح أنا بحين إنهين حتى هذا مقال كان بحيو قلادك ستبرير ممبر كوكون قنايا مركا وح أنا كسوق لنايو وح إلهي وقع بصناعي جنال كي جو أركتين أما جنال كانوا أركتين إنه فيوس الآن هايو ضد بدن أي سنة داونين haddii aan fiyus raadis kaliya ahay maalin walba waxa ka hadli karaa ceeb dad waxyaabo xun kaliya hadaa fiyus fiirinayo aakhiradeeda aan fiirinaynin mar hore lacag fiican ka sameeyay lahaa maxaa fiyus laanta idhigay wax kasta ma ku dhacdhici sababta waxa ogahay inay garbeyga malaa'ig saaran yihiin wax walba ku hadlay inay meel iigalayaan ogahay ee bari aniga iga hor imaan karaan inay tii rabbi ugu imaan karto ma fahanteen marka aan kala xishoono gabadhaasna waxaan ku qabta biina ku qabta marka commentigeeda arkay xalay بينا كقبتي لا يابي يقولنا قتي قفرن أو وين أو حسمي الله صوف الإنسان سؤالك لا تو ساس كفولحن أو ما أركنه ده إجسوا جاروي جيران لكن أنت قرنا على كبدن مركو حن لا هاي حلك الحشود قفل بحد كيس يسوق جد بين على إسكو احترام قدرك إلهي يعني إسكو جد جن ضد كما أركنه نلشوا ده يعني لا أفارق عشان قفل بحد كيس يوكسوا جد بين إن شاء الله وحرجينا يا إن مقال كان قبل أدجار سيسان وأنا ما هتسنتين مقال كدايتان كسو قارتين وحا إذن كعصنا يا مركلي لح كنا نوغري من كنتك كنا نوشير قريسان أفر كنا نوغو حيران لابا كن سدح كن مقال كشالي ما أركنو أنسوغي اللي فيرسوتو لابا كن سدح كن أشان بقول أساس تاقبلو لا إيشير قرياني إقرب تاقين جساك الله وقير عليها إن waxaa idin ka codsanayaa marka idin ku soo celinayaa gambaleelka ina furtaan subscribe waa noo saarteen at least 44 kun
toban kun oo taas nooga fiirsata ha laga helo insha allah waa mahadsantihiin mar kale muuqaal lamid inta ku kulmeen waxaan kaga tagayaa salaanta islaamka aan liigu qaato xanaaqa yarkaya mar waa la iska gashanahay waa mahadsantihiin anyway assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu